Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mid ka mid ah kiisaska aan la xalin ee dalka Panama ayaa noqday mid aan ilaa maanta loo hayn jawaabo caqligal ah. Qaabka iyo waxa soo gabagabeeyay noloshii Chris iyo Lisanna. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe and like waa noo muhiim, waad mahadsan tahay. Aynu bilowno mawduuceena maanta. Lisanna Faron waa 22 jir u dhalatay dalka Holland. Waxay ka baratay cilmiga farshaxanka jaamacadda Utrecht. waxay ka timid magaalada Deventer iyadoo la deganeyd saaxiibadeed Chris, iyagoo ka wada shaqayn jiray cafeterigan hortiina ka muuqda. intaasi kadib waxay kaydsadeen lacagtooda 6 bilood, waxayna qorsheynayeen inay aadaan dalka Panama, iyagoo ujeedkoodu uu ahaa inay soo bartaan luqadda Isbaanishka. Safarka ayaa sidoo kale uu ahaa xafladii qalinjebinta ee Lisanna, iyaga oo qorshahoodu uu ahaa inuu safarkoodu qaato ku dhawaad 6 toddobaad. waxay yimaadeen magaalo yar oo ku taala dalka Panama markay taariikhdu maraysay 29 Maarch 2014, taasi oo ku taalay gudaha kaymaha rooban ee dalka Panama, iyagoo la degay qoys halkaasi deganaa. dabcan sidanna waa siday sameeyaan dadka halkaasi tagaa si ay luqadda Isbaanishka ugu bartaan si fiican. markii cudugu wardambeysay waxay ahayd 1 Abriil sanadii 2014, iyagoo kala quraacday 2 wiil oo Hollandiis ah restauranti ay lahaayeen qoyskii ay la deganaayeen dalka Panama. intaasi kadib waxay u ambabaxeen 2 hablood dhanka kaymaha rooban si ay halkaas ugu soo qaataan dalxiis kooban. sidoo kale waxay sii wateen ay lahaayeen qoyskan ay la deganaayeen, iyagoo fariintoodii ugu dambeysay ku qoray bartooda Facebooka, waxayna ku sheegeen qoraalkoodan inay ku soo wareegayaan kaymaha Bukueta. kadib maalintaas waxa dambe oo habeennimadii ku soo laabtay guriga aygii oo keligii ah. dabcan ayga waxa ka muuqatay daal iyo rafaad, iyadoo la moodayay inuu ka yimid dhul malaayiin kiiloomitir u jira guriga. markana qoyskii ay la deganaayeen waxay bilaabeen inay wacaan gabdhihii, dabcan kuwaasoo ka baxay xadkii loogu talagalay. sidoo kale waxaa istaagay xidhiidhkii ay gabdhuhu la lahaayeen qoysaskoodii dalka Holland. subaxnimadii 2 Abriil qoyskii ay la noolaayeen waxay ku wargeliyeen booliiskii inay maqan yihiin gabdhihii. 3 Abriil waxa bilaabmay dabcan baaritaano hor leh. sidoo kale 6 bishii Abriil waalidiintii Chris iyo Lisanna waxay soo gaadheen dalka Panama, iyagoo ay weheliyaan cutubyo ka tirsan booliiska dalka Netherland iyo sidoo kale ayaha waxbaadha. waxa sidoo kale aan ka marnayn kooxaha samata bixinta ee dalka Holland si ay baaritaan ballaaran ugu sameeyaan kaymaha dalka Panama muddo 10 maalmood ah. sidoo kale waalidiintu waxay ballan qaadeen xaddi lacageed oo dhan $30,000, taasi oo la siin doono cid alaale iyo ciddii keentay xog ku saabsan hablihii. 10 isbuuc kadib 14 Juun haweeney deegaanka ah ayaa keentay boorsadii ay siteen habluhu, taasi oo ay sheegtay inay ka heshay dhinaca webiga ee u dhow tuuladeeda. sidoo kale waxay sheegtay inay hubto inaanay halkaas oolin maalin ka hor shandadu. kadib baaritaano lagu sameeyey boorsadii waxaa laga helay alaabo ay ka mid yihiin muraayadihii sunglasseska ahaa ee gabdhaha, $83, baasaboorkii Lisanna, caagado biyo ah, kamaradii Lisanna iyo telefoonadii gabdhaha. dabcan alaabtan oo aan waxba qabin ayaa si nabad leh looga soo qaaday goobta. haddaba su'aasha halkan ku jirta ayaa odhanaysa yaa dhigay boorsada goobta. lamana odhan karayo webiga ayaa siday boorsada, sababo la xidhiidha badqabka alaabada ee ku jiray boorsada. kadib baaritaano lagu sameeyey moobayladii gabdhaha ayaa lagu ogaaday sidan. saacado yar uun kadib bilowgii socdaalkiisa waxay soo waceen 112, kaasi oo ah lambarka gurmadka degdega ah ee inta badan dalalka qaaradda Yurub, iyo sidoo kale 911ka Maraykanka. tan oo muujinaysa inaanay aqoon u lahayn lambarka gurmadka degdega ah ee dalka Panama. sidoo kale waxaa la aaminsan yahay inay la kulmeen khatar ka dhigtay inay soo wacaan lambaradan. wax yar kadibna waxaa laga sameeyey iskuday kale telefoonkii Chris, laakiin wicitaanadan oo dhan midna uma shaqayn gabdhaha sababo la xidhiidha inay goobtu ahayd bilaa subaxnimadii 4 Abriil waxaa si kama dambays ah u damay telefoonkii gacanta ee Lisanna, sababtoo ah waxa gebi ahaanba ka dhammaaday dabkii, kaasi oo aan dib dambaysa loo isticmaalin. sidoo kale telefoonkii Chris ayaa marna la daminayay marna la daarayay si loo dhaqaaleeyo dabka ku jira intii u dhaxaysay 5 ilaa 11 Abriil, iyadoo sidoo kale uu ku fashilmay inuu geliyo lambarka sirta ah ee saxda muddo ka badan 77 jeer qofkii hayay telefoonka.
halkana waxa ah su'aal kale oo madax xanuun leh yuu ahaa dhab ahaantii qofkan isku dayay inuu ka furo lambarka sirta ah telefoonkii Chris iyadoo aanay sidoo kale suuragal ahayn inay noqoto Chris isagoo si kama dambays ah u damay 11 Abriil abaar 11:50 habeenimo markana waxa baaritaanadii loo wareejiyay kamaradii ay siteen gabdhuhu dabcan iyagoo sawiradu u socday intii hore qaab caadi ah inta kadib waxay qaaday kamaradu sawiro aan caadi ahayn habeenimadii 8 Abriil intii u dhaxaysay 1 ilaa 4 habeenimo dhowr sawir ayaa loo qaaday qaab cabsi leh kuwaas oo lagu sababeeyay kaliya 2 aragtiyood aragtida hore waxayna leedahay in kamarada loo isticmaalayay qaab iftiin ahaana maadaama ay meeshu ahayd gudcur madow halka aragtida labaadina leedahay waxa haystay kamarada qof ama noole kale kaasi oo aan gebi ahaanba aqoon u lahayn qalabkan waana kuwan sawiradii ay qaaday kamaradu habeenimadaas طبعاً sawiradan waxa kamid ah mid kaliya laga qaaday timihii Chris kadib helitaankii boorsada waxa dib u bilaabmay baaritaanadii iyadoo laga baarayo goobtii laga helay shandada iyo sidoo kale agagaarkeedii kadib waxa laga helay meel aan ka fogeyn goobtii dharkii Chris oo si habaysan loo laalaabay sidoo kale waxa la helay lafa bilaadan oo daadsan webiga hareerihiisa baaritaanada DNA-ga ayaa sheegay inay yihiin haraadiga lafihii gabdhihii la waayay lafaha liisaana ayaa lahaa maqaarkeedii taa cagsigeeda lafihii Chris waxay u muuqdeen kuwa gabi ahaanba la feentay dhakhtar u dhashay dalka Panama oo ku takhasusay cilmiga lafaha ayaa cadeeyay in gabi ahaanba aanay wax dhaawacay soo gaadhin lafaha isagoo meesha ka saaray jabinta ay dugaaga dilaaga ahi u geystaan lafaha dadka taasi oo sii cakirtay in la ogaado qaabka dhimashada iyadoo ay kiiskan ka taagan yihiin su'aalo badan oo aan ilaa maanta jawaab loo haynin haddana ilaa maanta waxay ku reebtay cabsi iyo argagax dadkii tuulada Bukweta iyo sidoo kale waalidiintii Chris iyo yuu yahay dhab ahaantii waxaan diirtay lafaha sidoo kale yaa dhigay shandada goobta intaasi ayuu ku eegyahay mawduuceena maanta fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe and like waa noo muhiim waad mahadsan tahay